Fu'aad waa la wada garanayaa dadka ku nool Somaliland oo dhan. Waa siyaasi aad u khibrad dheer. Marka waxa aan doonayaa marka hore ina aan u sheego Fu'aad familigiisa shacbiga Somaliland ina aan ka xumahay dhaawaca ku yimi iyo dhibaatada gaadhay. Ilaahayna aan uga baryayo in Ilaahay caafimaad sareecana siiyo. marka xigta Fu'aad siyaasiyiinta Soomaalida qof basib uu arkaa. marka siyaasiyiin kala duwan oo gobollo kala duwan ka soo kala jeeda ayaa ku kulma dawladda. marka Fu'aad inuu Somaliland muddo badan ka soo shaqeeyay, inuu Somaliland rasmi yahay, inuu siyaasi mug weyn yahay oo aad iyo aad dadka Somaliland iyo shacbiga Somaliland ba u jecel. marka waxa aan leeyahay Somaliland jacaylka uu jecel yahay aanay marra fake ka ahayn oo real ka tahay. يعني jacaylka uu jecel yahay Somaliland ay ka tahay serious. waxaan jeclaan lahaa inay dawladda Somaliland iyo shacbiga Somaliland ay meel adag ay ka istaagaan dhibaatadii ku timi. madaxweynaha oo aan filayo golaha guurtida, baarlamaanka, madax dhaqameedka oo aan filayo waxa aan jeclaan lahaa in Fu'aad loo dedejiyo dhakhtar dibadda ah oo la soo qaado. dawladdu uu hogaamiye Axmed Maxamuud Siinaayo haddii iska dhagatirtay inay caafimaad u dirto Fu'aad Aadan Cadde. dumarkiinu ma wax u qabatiin idinku si bal ninka madaxtooyada dalka Jamhuuriyadda Somaliland ku dhaawacmay si aad u dhoofin lahaydeen ama caafimaadkiisa aad wax uga qaban lahaydeen? bal ka waran arrinkaas. mahadsantahay Axmed Naasir. waxa weeye masaluugsani waxa aan wax uga qaban weynay maalintii uu cawarmayba wax in markiiba la qaado. laakiin haddii ay ilaa imika soo gaadhay يعني waxaan jecelahay sida ugu fursada badan